الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياراي كسو دوادا جانل وسعاد إن الله كسو دوادا جانل كنوريا ما أنت waxaan doonay inaan ka hadlo mowduuc muhiim ah oo waqtigan inagu soo socda laga hirgelin doono ama maaragtay laga fulin doono ama qabaqaabintiisii la wado waxaas mowduucaasna waxa weeye sidaad ciwaanka ka arkaysiin ama taswiiraha aan soo dhigaad ka arkaysiin waxa weeye waa baaruuda ama rashta ama fiirweerkiga sidii aad u taqaanidba marka fiirweerkigani ama rashtani waxay leedahay dhinac waa maxay ahayd waxaa lagu xusaa marka maaragtay xafladaha ama maad aragtay farxadda ayaa lagu xusaa laakiin dhinaca kalena dhibaatadeeday leedahay oo dhibaatadeeday wadataa waayo khatarteeday leedahay waayo dad si fiican loo isticmaali waayo dhibaatadeeday wadataa marka maanta waxaan doonayay in yaro wacyigelina aan ka idhaahdo oon maaragtay usoo bandhigo bulshadeena anigoo isku diyaarinaya oo ubadkaygana diyaarinaya ayaan la kulmay website ay leeyihiin dowladdu ay ku wacyigelinayaan bulshada marka waxaan is iri waxaad adiga jeclaysatay ubadkaaga la jeclaysatay walaalaha kalena usii gudbi ama waxaad baaritaankii aad ka heshay aad ka faa'iidaysatay walaalahaagana kale usii gudbi marka sheekadayaan igu badinaha ogalna mowduuca marka sanad kasta markuu waqtigu kala wareegayo wadanadan siiba qurbaha xoog ayaa looga xusaa loo isticmaalaa sanadka kala wareegiisa xoog baa loo isticmaalaa fiirweerkigan ama rashtani marka maxay sababtaa sanadku markuu dhammaado bisha koowaad markaaba wax lagu soo daraa wararka wixii dhibaato dhacay wixii ummadda dhibaato kasoo gaadhay hadday tahay fiirweer hadday rashtan tahay hadday accidentyo dhacay hadday tahay wixii dhacoo dhan waqtiga sanadku kala wareegayo dhan ayay soo bandhigaan subaxda kale si ay ummaddu u ogaato wixii ka dhacay waddanka marka waxaa soo noqnoqda markaste dhibaatadu ay leedahay rashtu ama baaruudu ayaa soo noqnoqota taayoo dhibaatadeedu ay dhakhaatiirtu ay xitaa dhowr jeer ay ka hadleen dhibaatada ay leedahay rashtani waayo markasta oo rashtii sidii ku habboonay ama sidii loogu talagalay loo isticmaali waayo dhibaatadeeday leedahay dadku indho beelay dadku gacmo beelay cid kastiba dhibaato way wixii dhibaato kasoo gaadhay ayay meesha soo bandhigaan marka dhibaatadeedii way badatay iminka waxaaba lagu tala jiraaba ma la joojiyaa mise waa la wadaa oo rashtan ay dadku ridayaan in la joojiyo ayaa iminka waawaanteedii iyo wacyigelinteedii ayaa socda inkastoo ay dad badani kasoo horjeedaan in la joojiyo marka adu say ku dambeyn doonto waan ogaan doonaa laakiin iminka ahaan dadku ma rabaan inaa la joojiyo ina way rabtaa ina la joojiyo marka xaga ku daali mayna waan iska dhaafinaa taa mowduuceyga maaha marka khatartaasay leedahay rashtu marka hadda waxaanu gudbaynaa xeerasha ay rashtani ay leedahay ay dowladdu soo dejisay sidaan wax uga ogaano marka waata waraaqadaydii baan wataa waan soo qoray xeerasha rashtu leedahay horta waxa weeji sanadka cishada ugu dambeysa ee kala wareega rashta la ridi doono ayaa waxaa lagu leeyahay markaad iibsanaysid rashta waxaa lagu qasbay dukaanadii iibinaya rashta inay markay kaa iibinayaan ay muraayadeedana ay ku siiyaan iyo xadhig dheero waxaa jira rashta marka la riday xadhig dheero dabka la qabadsiiyo ayaa jira markaasi xadhigaasi waa inuu dheeraadaa sii dheeraada ma laakiin waa inuu yar dheeraada siduu qofkii markuu waqti uu helo uu shido waqti uu ku baxsan karaayo inay dheeraato xadhigu inuu dheeraado rashta kalusha
taasaa lagu qasbay iyo muraayad inay ku siiyaan markaad ka iibsatid. talabaad waxaa la soo saaray rashta waxaa la ridayaa habeenka ugu dambeeya sanadka 6 kaga bilow habeennimo galabnimo ilaa 6 fiidnimo ilaa iyo 2 subaxnimo maalinta kale 2 subaxnimo maalinta kale muddada waad ridi karaysaa rashta waqtiga kale ku horeeya ma ridi karaysid. qofka iibsan karaya rashta wax weeji 16 waa inuu ahaada iyo wixii ka sareeya ama 12 laakiin F8 ba u xisaabiyeen. F8 waa category caruurta yaryar loogu talagalay 12. rashta aanan laga sajilin ama la ogoleyn ama mamnuuca in la rido waa mamnuuc ama inaad iibisid waa mamnuuc. marka rashta laga hadlayo halkan taswiireega inii soo dhigi doonaa waxa weeji rashta ay yidhaahdaan cobra bay yidhaahdaan khatarteeda ilaa bismillaahi raxmaan raxiim waa bahal aad moodaysid garanaad aad moodaysid now markaaba leh oo ilaahay maarata inaguma bixiye filin kale oo laga sheegay warka dhexdiisana halkan aan inii soo dhigi doonaa oo ilmo yaroo 12 jira rashtaa la siiyey oo uu yidhi waan qarxinayaa oo dhibaatadii kasoo gaadhay uu gacantiisa ku waayey. marka tafaasiil iyo macnay ka bixinayaan markaas halkan aan inii soo dhigay linkigiisa sidaad u daawatiin. ta koobaad waxaan linkiga iniigu soo dhigayo waxa weeji waa mamnuuc inaan fideogayga kusoo dhex daro fideoga laakiin linkiga marka inii soo dhigo waa la ogol yahay. laakiin ta labaadna waxa weeji fideogii baa daba dheeraanaya marka halkaas aan inii soo dhigi doonaa waad ka qaadan doontiin fideogaas sidaad ubadkiin aad u badbaadisin ood u aragtiin dhibaatada ay leedahay iyo impacta soo gaaraya waalidka ilmahaagii markood uu dhibaatadaasi ay gaadho waalidkana damage weyn ayaa gaadhayo wuxuu isleeyahay ilmahaygii maanan difaacin ama maanan caawin ama maanan diyaarin calaacal dambe ayaa kasoo xiga. inkastoo wixii qornaa uu ilaahay qoray aanada siba kugu seegin adoo xitaa diyaariyey ama adoo isdiyaariyey ama adoo macluumaadkii uruursaday ay haddana ilaahay hadduu kuu qoray way kugu dhacaysaa laakiin aduu dadaalkii uun la kaalay baa lagaa yidhi. marka insha allah waxaan sameynaynaa dadaalkii baan la imanaynaa insha allah inta kalena ilaahay inagu garab galo. ha usoo noqono xeerashii. talabaad waa inuu haysto qofku baashan la duldhigaayo halkan ayadana taswiirta inii soo dhigi doonaa waxa weeji baasha la duldhigo rashtii baad duldhigaysaa waad ka dheeraanaysaa markaasaad aad shidaysaa waad iskaga baxsanaysaa nacam dhulkii aad dhigaysay ayaa loo nacay waa qori yaroo kasoo jeeda rashta kasoo jeeda amba aad duldhigaysid markaasi ana xagga taswiirtiisa isagana inii soo dhig taana waad ku qasban tahay. talabaad dowladda hoose waxay xeerar waxay dhigtay inaana ma aragtay dhulka dhakhtarada soonan ka mamnuuc meelo ka mamnuuca inaa rashta lagu rido waxa weeji dhakhtarada meelaha maaragtay dadku ay galaan shicibku galaan ee caruurtuna ku badan tahay inaad taana ku rididna beertuga laguma ogola ama meelaha maaragtay xayawaanka dibadda laga soo ururiyo ee la dayacay lasoo ururiyo lagu hayo taana waa mamnuuc inaad ku rashta ku shidin maaha. ama kina buudiray waxa weeji meel iyaguna xayawaanku lagu hayo ciyaalku usoo dalxiis u imaadeen marka waxay ilaalinayaan xayawaanka marka uu rashta uu maqlo uu khalkhalaa uu naxaa uu cabsoodaa markaas waxaasaa loo diidayay inay xayawaankuna ay dareemaan ama maad aragtay ay dhibaato u keento waayo inagii waaweynaaba markaan maqalnaba rashka qaarkood dadka qaarkood ay dhibsanayaan markaa sida ahaan ayaa loo diidaya inaad dhulka aad ku samaysid ama aad rashta aad ku qarxisid. iyo haddaad samaysid waxaana waxaa lagu siinayaa iqaab baa lagu siinayaa
oo waa strafbar weji waayo xeerkii la dhigay ama wixii la idhaha sameynin ayaa samaysay marka ciqaabteedaad leedahay ayaa lagaa yidhi. waxaad haysan karaysaa firwerkiga rashta waxaad haysan karaysaa ilaayo waxaad iibsan karaysaa ma ujeeda ilaayo 25 kiilo iyaad gurigaagana aad ku haysan karaysaa. wixii intaa ka badan laguma ogola, laakiin aan waxaan oran lahaa khatarteeday leedahay. 25 kiilo way badan tahay, khatartay leedahay. caruur waliba hadday kuu joogaan iska jir, iska ilaali. markaasi waxaan u gudbi doonaa xeerasha waan ka hadalnay. marka xeerasha haddaad ku gudubtid maxaa dhibaato kusoo gaadhaya ayaan u gudbaynaa. dhibaatada kusoo gaadhaysa waa maxay? xaggana kusoo ururiyay iyagana waxaa lagu siin karayaa inaad xabsi gashid, waxaa lagu siin karayaa inaad lacag badan lagugu xukumo. caruurta wixii ka yar 12 ilaa iyo 18 sida iyaga looguma adko, laakiin waa la siinayaa ciqaab. iyagana waa la siinayaa ciqaabta waa la siinayaa, laakiinse ma badna. laakiin waxay u gali doontaa doosiga u gali doontaa oo maad aragtay ilmo dambiile ah ayuu qornaan doonaa. markaa ma fiicno inuu maad aragtay qofku nidaam ahaado oo uu nadiif ahaado ayaa fiican. waxaa la siin karayaa in ciqaab la siiyo ama inuu lacag badan ay bixiyaan ayaa lacagta lagu xukumay. waxay ku xiran tahay khatarta ay leedahay dhibaatada uu geystay ama maad aragtay waxa uu sameeyey ayay ku xiran tahay iyo da-dooda ayay ku xiran tahay. markaasi iska jira, khatartaasay leedahay. wixii xeer la dhigo waa inaa lagu dhaqmaa oo sidii la idhi lagu dhaqmaa. markaas haddii kale dhibaatadeeda kusoo gaadhaysa ama inaad jeel la geliyo oo maaragtay ama dariiqyadaa soo shaqee oo fiiq inaa la idhaahdo ayaa dhici karaysa. marka dhibaatadeeday leedahay waxayoo dhani. marka ilmahaaga dad sii diyaarisid ambaad tiraad isilaali ambaad u sheegtid xeerka, waxaa dhici karaysa inuu ka digtoonaado oo uu ma aragtay uu maxay ahayd una dembiga una gelin. waxaad ka iibsataa dukaanada sanadkan jadiid sanadkani waxaa lagu xukumay dukaanadii inay ku qoraan albaabkooga dukaanka bilowgiisaba inay ku qoraan waxaan iibinaynaa rash. marka cid kasta way arki karaysaa inay ay ku qoran tahay rash baan iibinayaa. marka waxay ka dhigan tahay inuu wax uu madmadow uu ku jirin oo wixiisu ay cad yihiin. markaasi dukaanada caynkaaya waa inuu ka iibsadaa siduu ma aragtay tani mamnuuca uu uga badbaadaa. marka ilmahaagana dhiirigeli dukaanka rashtu ay ku qoran tahay muraayadiisu rash baan iibinaynaa, kaasi waa inaad ka iibsatid. waa kow mata ugu horeysa. oo wuxuu haystaa harkan wax lagu aqoonsan yahay inuu loo fasaxay inuu iibiyo rashta ayuu haystaa kow. marka wax madmadoowa kuma jiro. taasi waa markaa rashta iibsanaysid waa inaad si fiican aad u eegtid ama aad u akhrisatid. markasta alaabta markaan iibsanayno haddaan dadka qurbaha nahay, markasta alaabta markaan iibsanayno waxaa la socota waraaqad baa la socota lagugu macnaynayo waxay tahay waxaad iibsatay iyo sidaad u isticmaali lahayd. markaasi akhriso baa lagu yidhi. oo way adag tahay ilmuhu markaaba dhag ula boodaya, laakiin u sheeg si degan ugu sheeg oo u macnee siduu u akhrisa lahaa uu waqti ugu heli lahaa waraaqada, siduu u isticmaali lahaa ee maaragtay bilaa maxay dhibaato lai maxay ahayd u shidi lahaa rashta. iyo waxaad akhrisataa kartoonka ay ku jirto rashtu. kartoonka ay ku jirto rashtu waxaa ku qoran da-dii loogu talagalay maxay ilmaha rashta loogu talagalay inuu ku ciyaaro amba inuu shido amba inuu iibsado ayaa ku qoran. badi 12, 16 iyo wixii ka weyn baa ku qoran. wixii ka hooseeya looguma talagelinba. 12
ayaa loogu talagalay inay shidaan, laakiin waxa kale ka hooseeya waalidku waa inuu la joogaa ama uu la shidaa ama uu soo iibiyaa, lagamaba iibinaya xitaa. markaasi 12 16 iyo wixii ka sareeya ku qoran. markaana eeg kartoonka ay ku jirto rashtu, eeg maxaa rashta eeg kartoonka ay ku jirto da'dee ku qoran, da'dee loogu talagalay inay ay isticmaalaan. sidaad u ogaatid ama sidaad u maxay ilmahaaga aad u bartid oo u diyaarisid oo maad aragto siduu isagoo wixii og uu u sameeyo, inaad aad u diyaarisid oo u sheegtid meelaha uu eegayo, meelaha uu maxay ahayd siduu isagu isku difaaci lahaa ama isagu siduu isku badbaadin lahaa waa inaad bartid, waayo adigii lama joogtid mar waliba. waxa kaloo lagu sheegayaa xitaa maalinta habeenka waqtigu sanadku kala wareegayo dee rashta la isticmaalayo ama baaruudda la isticmaalayo, ha qaadan baa lagu idhi maro, dharkaaga ha ka dhigin maro shamaca, waayo shamcu markuu dabka qabso markaaba uu soo duumayaayo degdeg buu ololayaa, markaana jirkaagiina markaaba uu leefsanaya oo marooyin hore u gubanaya ha xidhanin baa lagu yidhi. hana isticmaalin baa lagu yidhi jaakeet jeebado waaweyn leh amba kabushonga leh, waxayoo dhan ha isticmaalin, waayo khatarteeda ilaa iminka rashti marka lagugu dhex rido jeebadaada iminka kugu dhex dhacay warboo ma haysid, way kugu qaraxday. ama kabushonga waa baashanaysan loo soo xidho, amba halkanaaba lagugu dhex riday war ma haysid. marka nacam waxaa xitaa lagu leeyahay dharkaad xiranaysid habeenkaa ka digtoonow inuu nahayn wax shamaco dabka horay u hubsanaya ama hore u qabsanaya iyo wax jeebadab waaweyn loo badan ay isticmaalin, waayo khatarteeda ciyaalka qaarkood ciyaar bay ka dhiganayaan, laakiin khatarteeda ay leedahay. marmarka qaarkood inta soo qaada rashtiga jeebadaha isku gelinayaan amba koofiyada kabushonga la yiraahdo isku gelinayaan, marka wax waliba ka suurtagalaya iyaga ciyaar bay la tahay amba dhaaldhaal, laakiin khatarteeda ay leedahay. marka ilmahaaga waa u macne karaarid oo faa'iide siduu isagu isku diyaariyo. hana isticmaalin baa lagu leeyahay karbiidka ha isticmaalin amba brikeega ha isticmaalin, waayo gacantaadii baa u dhow. waxaa jirta tuu kaloo sidii brikeeg oo shawladaha badi lagu shito ee dheer kaa isticmaal, kaasa waayo waad ka fog tahay markaad shidaysid rashtii. waxaanad markaad shidaysid rashta waa inaad eegtid inay si fiican u fadhido, inay maad aragtay waxaa jirta rashashta qaarkood inaad si fiican inaad u dhigtaad moodaysaa ama dhulka aad ugu taagtay, laakiin marka aad shidid kadib quwadeeda ay ka soo baxdo meeshii aad ku taagtay oy dadka ay dhibaato u keento ayaa dhici karaysa. gacantaadana ha ku shidin, carabta qaarkood gacantayta dul dhigaan ayay gacanta ku dul shidayaan, marka taasina khatarteeda amba way ku qarxi karaysaa amba budadan ka daadanaysa khatar bay u tahay isaga ku hadhaysa jirkiisa. iyo iskana ilaala dhulka ma aragta geeduhu ay yaaliin ama geeduhu ka dhow yihiinna ha ku shidin. dadkana ha ku tuurin, marka aad shidid carruurta qaarkood ay shidaan ayay ku tuuraan dadka, ha ku tuurin iyo xayawaankaba ha ku tuurin, waayo waad ku dhibaateyn karaysaa. rashtu hadduu imika shido ay qarxi waydo dib ha u shidin haddana, waayo waxaa dhici karaysa inay wax iska khalkhaleen, laakiin marka uu taabsiiyo dabka ayba ka boodaba, markaas mar hadday ku hirgeli waydo mar labaad ha ku celin, iska tuur, waa khatarteeday leedahay. mar kale waxaa dhici karsa marka dib u shididba inay markaaba bug tiraado. hana tijaabin adigoo waxba isku gegoynoo rash baan ka samaynayaa iyo waxbaan kala furayaa iyo waan eegayaa iyo ilmihii yuuna isagu baaritaan gelinuu rashtani ayuuna ku ciyaarin amba isagu baaritaan u ka dayin oo ma aragtay uu isagu bahashan uga furfurinba amba uu idhan baana isku gegeynaya, waa inuu iska aad ka ilaalisid isagana taana. markaad tuuraysid rashta markaad tuuraysidna waa ina horta biyo aad meesha ku shubtid say u qoydo amba u rado amba u qarxin. intaasay ayaan kusoo koobayaa.
wixii kale aan isiraado kusoo biiri taswiiraan inii soo dhigi markaas inagu waxaan idhahnaa ilmaheena wax kastaba waan u diidnaa ha taabsan ha marin ha sidan kale ha yeelin maxay adiga hadduu kaa waaye macluumaadkii ogow inuu dad kale uu ka heli doono macluumaadkaas oo waxaa dhici karaysa laba af bay leeyihin macluumaadkan inaa uu ilaahay dad fiican oo isxil saare ama khatarteeda baasho ay leedahay ka fikiraayo inuu la kulmo oo sidii fiican ugu macneeya oo idhaa saa yeel ama inuu la kulmo dad iyagu warkaabaanan hayn oo sidana la yidhaha ilmihii khalad ugala sheega oo markaa macluumaad khatara amba khalada amba ku habbooneyn da'diisa amba isaga u fiicnayn inuu la kulmo waayo ilmihii ma ilaalin karaysid dibaddan kusoo ciyaarayaaba ku odhanayaa uu baxay war uma haysid adigii ma difaaci karaysid ilaahanba wax difaaci karaaya marka waxaa habboon inaad isaga wixii aad garanaysid ama aad baratay ama aad og tahay khatarteeda waayo adiga noloshiibaa kusoo qorqortay noloshiibaa kusoo siisay taariikh noloshiibaa kusoo siisay experience waxay yidhaahdaan herfarin waxay yidhaahdaan laakiin isaga noloshiisu hadday bilaamatay waxba kama oga nolosha marka wixii adigu aad soo baratay isaga ku shub oo sii oo waani oo bar oo tus weliba caruurta waa la idhoon kuma fahmaane taswiiro ula kaalay taswiiro markuu arko taswiirtii maskaxdiisa way fadhiyaysaa inagoo hadal baan sheeka ku dhamaynaa baraa maaha taswiir tus siduu arko kaasi waa khatar taasaa fiicantaad waayo waxa cilmi baadhid markii la sameeyey waxa uu qofku ku arko practically uu ku arko amba samayn amba taswiir uu ku arko ayuu ka xifdi og yahay wax laga iri marka ilmahaaga taswiiro ku tus dukaanada xitaa gee u kala sheeg tani waa taasi waa sidaa caruurta caynkaa loogu talagalo u macnee waxbaa ka cabsoon wixii markaad bartid aad u sheegtid isagii xata ilaahay muujiye uu ku dhaqmi doona insha allah marka ilmahaaga bar oo macluumaad bar waayo caruurta kale markuu u tago isagoo jaahilka ah waxani si fudud ayay u isticmaali karayaan ilmahaaga laakiin hadduu ilmahaagu ogyahay faa'iidada ay leedahay waxan iyo khatarta ay leedahay waxani lama maraayo wixii uu og yahay uu isdifaaci karayaa ra'yigiisu ka dhiiban karayaa uu diidi karayaa markaas waxaynu oran lahaa walaalayaalow ilmahaaga bar oo wax kastaba ha ka cabsoon ha ka xishoon waxba ceeb maaha cilmigu ceeb maaha ilmahaaga bar faa'iidada ay leedahay bar oo dhe waxnu fiicaya hadday tahay waqtiga biber markuu yahay hadday tahay fiirweerkiga rashtaan ka hadlayno hadday tahay saaxiibka hadday tahay saaxiibadaha waayo waxaad arkaysa caruurtu markay 14 markay gaadhaan way isbedilayaan cadara laysku shubayaa waxaad arkaysaa inay feelinkii uu bilaamay amba maarta hamigii uu soo kacay soo fadhiisay xaggan u sheeg wixii macquul ahayn waxay diinteenu ka qabto waxay diinteenu ka qabin waxaayoo dhan u wada sheeg wax ceeba ma jiro adigii haddaad sidii nidaamkii aad wax ugu sheegi weydo si khaldan baa loogu sheegay ogow markuu albaabkaaga ka baxo marka ilmaheena dhiirigelino ilmaheena aan diyaarino waayaan u malaynayaa waxa kale inta kale taswiiro ayaan inii soo dhigi doonaa insha allah marka caruurtana xeerka markaad u sheegto inuu ku dhaqmo ku dhiirigeliya waayo hadduu booliis ku qabto khatarteeday leedahay inuu ma aragtay la siiyo shaqooyin inaa lagu qasbo inaa adiga lacag lagugu qasbo inaa ma aragtay isaga dooseegisii la buuxiyo markaas oo ilmo qalqaaliya ama ilmo dhibaataysan loo arko marka ilmahaaga diyaari hooyooyinkiyow aabooyinkow wixii ilmo yaryar haysta ama kuwa waaweyn haddaanad hore ugu sheegin hadda ugu sheeg
markaa diyaariya ubadkiina saasaan oran lahaa insha allah sidaasaan isku ognahay ilaahay galo khayr iyo baraka inay rajaynayaa ilaahay nagu nabad yeelo meeshaad joogtiin soomaaliyeed waxaan jecelahay inaad ka faa'iidaysateen